magaalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya xilligani waxa ka soconaya dib u dhis aad u xoogan waxaana inta badan degmooyinka caasimadda aad ku arkaysaa dib u dayactir lagu sameynayo dhismooyinkii uu saameeyay dagaaladii magaalada aafeeyay iyo weliba dhismooyin kale oo hor leh oo loo dhisayo qaab casri ah. shirkado ay leeyihiin dad Soomaaliyeed ayaa isku xilqaamay inay dhisaan guryo waaweyn oo ka kooban 8 dabaqo iyo waliba kuwa ka badan oo qayb loo kireynayo maadaama inta badan magaalada ay dib ay ugu soo laabanayaan shakhsiyaad Soomaaliyeed oo dalka ka baxay xilliyadii dagaaladu ay ka jireen. muddo 22 sano oo burbur badan ka jiray magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya haatan waxa ay u muuqanaysaa in uu jiro isbedel aad u xoog badan oo dhanka dhismaha oo ka jira gudaha caasimadda waddanka Soomaaliya ee Muqdisho. guryaha dabaqyada ah ay indhaha ugu ay qabanayaan markaada meel sare aad magaalada aad ka eegto dhismooyin soo jiidasho leh oo la qaabiyay waxaana qaar ka mid ah dhismooyinkaasi la dhigay ama loo dhameystiray wixii agab ah isticmaali lahaayeen dadka degaya waana mid farxad gelisay ummadda Soomaaliyeed in caasimadii dagaalka ay isku bedeshay caasimadii horumarka iyo dhismaha. mid ka mid ah madaxda shirkadaha dhismooyinka wada ayaa ka warbixiyay ujeedooyinka iyo waliba waxa ay ugu talagaleen dhismo ka kooban 8 dabaq oo qayb loo kireynayo. magacayga Cabduul Maxamed Cilmi waxaana agaasimaha qaybta Safari Apartment company-geena magaciisa ugu weyn waxa la Muqdisho Star waxaan ka qayb qaadanaa dhismaha magaalada ka socdo qaybihiisa intiisa badan waxyaabaha objective-ka oo company-ga leeyahay waxay tahay in oo laba objective oo focus ka saaro objective koowaad oo ah in uu suubiyo waxyaabahan development-ga waddanka ah aan soo kordhino waxyaabo cusub oo mataqaana dalka dibadda ka imaanaya ama dalka dadka gudaha ku nool inay mataqaana aad ugu farxaan qaasatan waxyaabaha development-ga aan ku suubin hadda waxa kamid ah qaybtan Safari Apartment ama agaasimaha ka ahay waxaan dhisnay 8 mataqaana oo 48 oo filaad ah
oo midkiiba ka kooban yahay 8 dabaq unit kastana wuxuu leeyahay 4 qol iyo 4 musqulood iyo city roomkii iyo waxyaabo casri ah aan wadanka hore looga arkin taasna waxa uu talagalnay dadka mataqaana gudaha ku nool ama ganacsatada ama dadka mataqaana dhaqaalaha haysto ama dadka dibadda ka imaanaya si ay aad ugu farxaan ee wadankooda ku noolaadaan maadaama inta badan mataqaana dadkii hadda dib ugu soo noqonayaan oo nabad dareemayaan waxyaabaha kale aan hadafkeena aan saarayna waxay tahay unemploymentiga dabcan waxaa arkaysaa dhalinyaro badan jaamacada ka soo baxday ama mataqaana dad low levelkii oo aan shaqo haysan marka waxyaabaha aan focus ka saarayna waxay tahay in dadka aan shaqo u abuurno qaasatan meesha agaasimaha aan ka aho kale hadda subaxii waxaa u soo shaqo tagto adiga average ceel subax kasta 78 qofood oo dhammaan iskugu jiraan dad professional ah iyo dad aan unprofessionalki ah marka waxyaabahaas marka waxaan noo keenay waxay tahay inaan dhalinyarada ku dhiirigelino in kuwa yaqaano farsamada electricianka kuwa yaqaano xagga dhismaha oo fundiga in dhammaantood aan siino opportunity oo ah oo waakii in mataqaana familkooda mataqaana ay ku dhiiradaan maadaama arkeen dhalinyaro badan oo wadanka ka soo baxday oo professional ah haddana magaalada iska fadhiso oo san haysan wax shaqo ah taasa marka waxyaabaha company-ga oo markasta objectivekiisa labaad ay tahay siinaa waxay tahay in dhalinyaradii uu siiyo shaqooyin fursado ah kii engineering ah in la siiyo shaqo engineer ah oo guriga wax ka dhisi karo kii electrician soo bartay in la siiyo karo shaqo electrician ah kii farsamo kale yaqaan in la siiyo karno marka company-ga ma ahan gurigan kaliya waxaan dhisayno waxaa kamid ah guriyo badan oo magaalada aan ka dhisayno dhammaantood waxaa subaxii u soo shaqo tagto average dhammaan isku ceelis waxay noqon kartaan 230 iyo 270 gaaraan marka dabcan waxay ku muujinaysaa markay in wadankii hore u soo hormarayo oo mataqaana developmentkiisa kor u kacayo wadan kasta waxaa laga fiiriyaa waa dhismaha wadanka bilicda iyo waxaa laga fiiriyaa dhalinyarada shaqo haystaan marka waxaan isku dayaynaa haddii labaas aan xoog saarno wadankan inaan ka dhigi karno wadan aad u qurux badan iyo inaan ka dhigi karno dadkii tahriibayay ama dadkii waxyaabaha kale oo aan munaasabka ku dhaqaaqay inay suubiyaan wadankooda inay mataqaanaa investment ku suubikaan dabcan qofkii wadankiisa markuu ka shaqeysto lacagtuu qaato wuxuu ku suubinayaa wadankii GDP-dii uu kordhaya marka waa midaas focuska waxyaabaha aadka always aan u danaynayno inaan company-gana ka hormarino muruqmaalato badan oo ay ku xiriiraan xaas iyo weliba caruura ayaa muddo sanado badan la'a waxa ay ku maareeyaan nolosha qoyskooda balse xilligani waxa ay la jaan qaadayaan dhismooyinka magaalada ka bilowday iyagana shaqo ka bilaabay nolol maalmeedkooduna ay ku maareeyaan qaar ka mid ahi shaqaalaha ayaan waxaan kala sheekaystay qaabka ay u shaqeeyaan iyo weliba waxa ay ka faa'iidaan magacaaga sheeg Idris Maxamed Abdi إدريس هي اسمها عسير هالكان كسر كشقة بل محاك غبتها الحميس تنكا هي محا الحنتها برا ديريال وحي هلا أنا صوبه واقفتي شقة الحميستها إلا يقول ميك شقينيسي أنت وعنك شقة حال سنة يتضو بلوت أجوكتها واقفتي كور محاك بجرتي مقالة بدل وين كذا عادي اسموينا كبلاوضي هذيك كور سيكو صام بيصير أنت والله عليك كو شقة وين مهانين درولا اسكا هاي لكن انت شغال اهله ما شاء الله الحمد لله كل يوم اي حاسي عروه لدا طلع كور ما شاء الله لدا عروتي سغال 8 لك كلا كده هي كور هذا markaa shaqadan bilowday nolol maalmeedka iyo biilkii reerka iyo waside الحمد لله ما شاء الله هي كور magaalada isbedel ka socod maxaa aragtaa والله ما شاء الله بسطه maxaa ii sheegi kartaa كل shaqadiina la qabanayo dhismooyin badan la hayaa هذا aqoon meesha waa naay korortay waxna ku sii faa'iideystay anna koobna waxa waa ii bilawnaa hadda ma sha Allah alxamdulillah ku moodayna ma sha Allah adiga iyo asxaab kale oo halkan kula joogto xawaay wax badan ka faa'iideystay ha waxna waa ka kororsaday waxna waa ku kordhin hadda baalgamoondu horta alxamdulillah ka fiicnaa waa ka fiicantii haye laakiin markii hore see xaaladu ahay xaaladii hore isku xarineed waa dhibaato jirta ay maxaa kamid waxba lama helayni meel waxaad ka helaysid male marka soofto ibr waa iska naqiyey ilmaada ku baahan yihiin marka adiga oo ibr iska tagay mas'uul waa gartay hadda laakiin dhismooyinkan socdo iyo waxyaalo badan nolosha ka bedeshay nolosha dhismooyinka ka bedeshay hay maxaa kamid ah waxyaalaha nolosha ka bedeshay waxyaalaha isku bedeshay waxa waaye dhismada hadda marka oo had soo baxday maalintii oo kunooli maalinku moodka as yahay 150 oo noo tahay marka 150 kaasi markii guri aad geysid deentii oo xoogo aad qabti xoogo ku dhimay waxay kala dabirada u dhameystireen hay marka maalin walba yoomka xoogaga waa qaadaysa sax maalinta waa waysa ibirka bixisa maalinta
markii hore laakiin dhibaatooyin jiray dhibaatooyin xoog leh jiray marka kabar reerkii caruurtii marka noloshooda fiirsid makaafine اليوم كان مكافئ سيد كله عواي كمل قال ميل الدولي ميل الدولي بوس يا كدولي مز عرر لذا وحن لي انا لحرو عرر لذا واقف وحمد برتان magacayga aniga cabdiqaadir ali lahaa cabdiqaadir hay maxaa laakiin waraaba ku magac dheer yahay waa gartay waraaba inta shaqada ka qabtay maxay tahay aniga shaqada waxaan ka shaqaystay dhagax waa gartay hadda waxaan qodohayaa baliindi oo dhismo aas ah maalin nolol maalmeed waxaana la siiyay adiga 150 maalintii oo waxba aas loo qabo hoyna bal ka waran noloshaada iyo dhismooyinka magaalada ka socda iyo shaqadaada ka waran shaqadayda iyo shaqada magaalada ka socoto haddaan isku ilaaliyo aniga shaqada oo nolosha ma igu filna waa gartay waa fahamtano waxaan jeclahay aniga sida hadda waxa inta la ii qabtay shaqadan oo hadda aan hayo waxaan jeclahay hadda la ii helayo shaqo awood leh lacag leh oo nadiifsan oo nidaamsan haddaan la ii helayo waan rabaa inaan ka shaqaysto haddaan waayana nolol maalmeedkayga inaan iskaga dhadhacsado ayaan diyaar u ahay marka dhismooyinka ka socdo magaalada ka socdo markii ugu horeysay oo dhismo noocan ka shaqaysaday maxaa dhow dhismo walbaan ka shaqeynay ana 4 sano ka shaqeynay waa gartay 4 sano dhismo leen haya dhismihii kugu dheeraa dhistay maxsuusta ka qayb qaadatay dhismihiisa isbitaalka oo nay afgooy waa gartay ayaan aad aaga shaqeeyay صح كور عرور ملذا عرور ولا حاس ولا امس عرور لذا تضبط واقفت وكو جوجا كل قد جوجا والدي جوجا كور marka biil halka ka qaadatay iyo masaafacaya maya masaafacaya ay maxaa ku maraysaa wallahi deenan iska qaadanaa dan tagno iska gudnaa sidaasan kuma noolaan ana wax kale hadan hayno ma jirto waxaan tan qaadan mudadii hadda idin ka garoontaa baa mudada ana garoontaa alxamdulillah waa shaqeynaysiin shaqeynaa laakiin nolol oo waxaan haysanaa nolol maalmeed هذا ما استطاع يا وما استطاع لازم كل شيء اي مقعد شيء اسماعيل ابو بكر اسماعيل كورن شغله هيسيد معاه شقدان وشقنا المامد واي واقف اليوم واقف اي ساس واي كورن marka waxa qabtaa halka waxa qabtaa بليندي قدوه كورن بليندي muxuu yahay asaga dadku u sheeg bal بليندي maxaa aasaaska tiirarka oo dabaqa waay marka dabaqa halka la raayn laga dhis dabaq saddex biyaan raayn laga dhis واقف صح hay ka waran marka nolol maalmeedkaaga iyo magaalada shaqooyinka ka socda dhismooyinka aad magaalada ugu soo badanayo si fiican ka waran arintaas waa fiicanta اليوم اللي joogna laakiin صح marka اليوم maanta waxa qaadato subaxdii ibraak soo ka yaadan hay واقف ماشي wixii wala isku qiyaasamo wala isku waxaan wax la isku talagal way واقف marka maalinta marka qaadatid biilka marka guriga ay geysay wixii subaxii ibraak ka taa ibraak ka taa marmarna iskooyada lagu dhaado oo bawraacaysana iska bixi sax adiga markaad fiirisid marka hore wax ma qaban jirtay shaqo ma la maya dirbi joog la meel la iska joog hadda ka waran isbedelka markuu dhacay isbedelka waa lagu qasbay ama hadii abadi lagu dhaay waa lagu qasbay inaag carruur allada misalada laba carruur waa jirtay ka waran marka shaqadan waxa soo gashay subaxii filaya subaxdii nuska saac inta xaadir haye meeqa saac ka baxdaa 12 saac 10 saac bar haye marka wax caqabado ma jiraan oo caqabada hadda roobka kale markuu yimaado baatmadi ku taa may wax dhibaato nu weyn anigu xooggeena daba joognaa haye wixii galna la dhalay galoona waa gartay saas way marka waa ku qanacsantahay noloshaada may guriga eber wareer waa moogtahay haye joornaati qaaduruna 150,000 okay way guriyo qurux badan magaalada ka dhisteen anaga dhisooyin wax dan waa shaqeynaysiin waa shaqeynayna aad ma asta ayaa sibay yor alxamdulillah wallahi ka waran marka shaqadan ay haysid bal wax shaqadan waa iska muhiimsan tahay nolol maalmeedka ma aragtaa waa nafsi sab way markii hore baagamoondada iyo hadda oo shaqooyinayso aan ka waran baagamoondada waa ay ka dhaan tahay ma garat sax marka asi ahaatee nafsi sab waaya joornaatigeeda 12 saac 10 saac ayaa laga baxaa joornaatiga maalin waa heli maalin ma helisid adee nafsi sab waaya waa gartay markaad fiirisid hadda dhismaha aad dhisaysiin dhismooyin kale aad hore u soo dhisteen ma jiraan anaga dhan shaqaaleyan dhismooyin oo badan oo soo dhisna waa jirtaa meelyooyin badan oo soo dhisnaa jirto xagee ka mid waxaa ka shifis goberno afgooye yaa isbitaalka meelyooyin badan waay waa gartay oo soo tirkumen shirkadan hadda dhow ma ku soo biirin aniga magasta
shirkadan caadi waaye maaragtaa hadda xoogo bishaan xoogo macnaha isdibir kala sii dhacay maaragtaa joonaad maalin waa la helaa maalin ma la helaayo saasa iskaga dhaqmuuna hadda mago caadi waaye hadda aboos dhib mu qabni maalintii oo aan wayno waa diina iska qaadiyena saasaan ku dhaqmuuna adi caruur hala iyo hal waa iga sameeyay daawadayaal guud ahaana barnaamijka muuqaalka bulshada toddobaadkan intaasi ayaana ku soo gabagabeynayaa waxaana barnaamijka idila socodsiinayay anigoo Salmaan Jamaal Saciida dhanka farsamadana waxaa qaabeynayay Cabdirasaaq Maxamuud Jaamac Maqosle kaamiradana isla Cabdirasaaq ayuu ahaa inaguna barnaamijkan toddobaadkan aan kaga hadlaynay dhismooyinka iyo waliba horumarada ka jira dhanka dhismaha magaalada caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho waa Salmaan Jamaal Saciid iyo waliba bahda barnaamijka muuqaalka bulshada oo isku duuban oo idinkaga tagayo sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh